agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeye iyo wafdi ballaaran oo ka socda wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isbitaalka guud ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer soo gaarsiiyay deeq-dawooyin ay ugu talagaleen isbitaalkaasi. Madashaasi lagula kala wareegayay deeqdaasi dawooyinka waxa goobjoog ahaa agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Burco Dr. Cabdi Suudi, isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Aadan Malaay. Ugu horeyntiiba waxa hadalka qaatay agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Burco Dr. Cabdi Suudi iyo sidoo kale isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer, kuwaasi oo ka warbixiyay xaaladda isbitaalka iyo sidoo kale xaaladda caafimaad ee gobolkaasi Togdheer. Halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Caafimaadka. runtii agaasima haddaan warbixin ka siiyo xaaladda caafimaad ee xaaladda isbitaalka guud ee magaalada Burco. Dooyinkii u dambeeyay agaasima waxa ka jiray magaalada Burco xanuun reeb Burco u bixiyeen kuduudiye. Marka haddaan xanuun ka warbixin ka siiyo, xanuunkaasi wuu soo yaraanayay muddo 15 cisho u dambeysay. aad buu soo yaraanayay xanuunkaasi beeshanadana soo gaadhay. shalay u dambeysay waxaana soo gaadhay ma jirin oo xanuunka ka cabanaya. daraad 5 beeshan bay ahaayeen, maalintii ka soo horeysay 6 bay ahaayeen. marka haddaan warbixinta ka siiyo xanuunkaasi waa sidaas oo soo yaraanayay muddooyinkii 15 cisho u dambeysay beeshanada naga soo gaadhay. isbitaalkan wuxuu siinayay bulshada reer Burco iyo reer Togdheerba adeegyada caafimaad ay u baahan yihiin dhammaan waanu siin. agaasimaha guud waxa leeyahay xanuunka uu dhakhtarku sheegay xanuunkan uu soo yaraanayay. isbitaalka waxa lagu daweeyay 500 iyo dheeraad. intuba waxay ka baxeen iyagoo bed qaba oo caafimaad qaba ka baxeen. wax ay disability ku reebeen ama wax ku dhintay ma jiraan. xarumaha kale caafimaadka ama dhakhaatiirtu fadhido haga waxaan ku shirnay dhakhaatiirta oo dhan baan ku shirnay barafadada haysta iyo ku MCH-daba iyana wax ay markaa noo soo qadeeyeen oo dhimasho ma jirin. waxa yara muddo si yar xanuunsanayay dadka xanuunada kale qaba. waxa kana hambaliyo ballaaran uga jeedinaya bada saabka ma reer Burco waxa la Togdheer waxa leeyahay kanaacad hala dagaalamo. xanuunkan kanaacada fidinayee aynu nadaafadda nin kastaba miyiga kuma dhaca xanuunkan wuxuu ku dhacaa meesha cidhiidhiga ah kanaacadan keenaysa waxa weeyaan. ugu dambeyntiina waa hadalka qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi, waxaana ka mid ah hadaladiisa. run ahaantii maanta waxaanu joognaa gobolka Togdheer, waxaanu joognaa gaar ahaan magaalada Burco, waxaanu sii joognaa isbitaalkii magaalada Burco ama isbitaalkii weynaa ee magaalada Burco. halkaasoo aanu u nimid safar shaqo oo ujeedadiisu ay ahayd bal inaanu ka war helo xaaladda guud ee gobolka, gaar ahaan xaaladda degmada. iyadoo muddooyinkii u dambeeyay uu jiray xanuuno ilaa ugu yaraan 3 jeerna ay wasaaradda dhexe timid, marba heer timidba. maanta waxaan agaasima guud ahaan u yimid bal inaan soo eego xaaladii ahaantii. waxa kaloon jecelahay inaan mahad ballaaran u celiyo maamulka caafimaadka ee gobolka iyo agaasimaha guud ee isbitaalka, agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Burco iyo shaqaalihiisaba sida firfircoonida leh, hawlkarnimada leh ee ay run ahaantii bulshada ugu adeegayaan. gaar ahaan waxa aan odhan karaa 2 jeer oo ay ka dilaaceen xanuuno intii aanu joognay. 2 jeerba waxa ay muujiyeen hawlkarnimo weyn marka la eego sida professionalka ah ee uga hawlgaleen. mid wuxuu ahaa shubankii magaalada ka dhacay, midna waxa uu ahaa arinta xanuunkan xumadda ah ee muddooyinkii u dambeeyay jiray. run ahaantii intuba waxa ay tilmaameen awoodda uu leeyahay caafimaadka gobolku iyo gaar ahaan awoodda uu leeyahay isbitaalka Burco oo ah mid ka mida isbitaalada imika wasaaradda horumarinta caafimaadku ay u soo qaadato halbeega marka laga hadlayo, maaha oo qura marka laga hadlayo. waxaanu doonaynay inaanu imika ahaan gobolka iyo isbitaalkaba ku wareejino daawooyin fara badan oo kuwa emergency-ga ah oo maaha gunti iyo gabagabadii waxa uu kormeer ku tagay agaasimuhu qayb ka mid ah kormeer isbitaalka guud ee magaalada Burco, kaasoo uu kurgalay xaaladda uu ku sugan yahay isbitaalkaasi iyo siyaabaha kala duwan ee u shaqeeya isbitaalkaasi. Maxamed Yuusuf Cabdilaahi Maxamed Wardi, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco.